lacag kule baa haysta waxayna yiraahdeen lacagtayda nala siimahay la aasimayo $7,000 lacagtaas waa dhan tahay haddana waxa dhiman dad kale oo xoolo baa soo socda waan wacnay ku jira dadka amray baan ku jira hadda ayadoo nool baan waxaan ku yiraahdaa hadaa dhimatid lacagta ma lahayn reer baadiya lahaa aniga sida adiga lagu leeyahay hadaa isiin weydo inta nooshahay hadaa iga horeysid waa ku qabsanay deenkana lagu leeyahay waa $7,000 mana bixin karno danyaraanu nahay sifiyaadan cali gabadhaas waxa weeye sida loo sheegay ganacsatay ahayd ariga qali jiray annaguna arigaanu ka gadi jiray waxaan ku leeyahay lacag 400 ma garatay waxaan ku leeyahay hadda muddo 7 bilood waana ka waayay haddana waa taageeriyootay Allahu naxariisto marka waxa weeye dadka amray baan ka mid ahay lacagta reebaadiya leh ari reebaadiyaan ka gaday sida aanu haysana annagana noo haystaa och då meddelade Mokhtar att han var osäker på om han var fader och ville göra ett DNA-test. markaas uu xiriiray Mokhtar anigu ma hubo inaan aabe ahay DNA halaga qaado. Då skickades det ett DNA-kit till ambassaden men Mokhtar dök aldrig upp för att ta testet. بسم الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أصحابتا شرفت له قيمة بدن قايها بدن ومركلي مقال برتنا ديالي هانيسان وبرتني كل مجرني ولا كامل يبرو صلي النبي صلى الله عليه وسلم هاي المؤمنين وصل هذا إذا انتهي سوت كذا كدبنا اسمه كان برق مختارو محكمة بلو بلمي يب حجاي odagu ma shakiyay waxba baalaha ka yaacay si kasta ha ahaatee qoftii milyan roobla ahayd qof ag dhigaysa maaha qosol waa idin haya laakiin la yaabiyada ay dhigtay maxkamad baa la isla tigay ilaa social media markii uu kala ahaa ma dhalin dadku waxay isaga qabeen ciyaar anigu waxaan moodayay in ciyaar maaha anigu shakhsiyan waxaan u qabay ciilka naagta uu qabo ku inkir wacal bay dhashay hal la dhaho hadafku inuu saa ahaabaan bamoodayay saasaan bamoodayay ilmihiisa nicitaanu nacay iyo shaki uu ka shakisan yahay iyo filimkaasba aniga maba iga dhaadhacsanaynba waxaan iska moodayay wax ma garanaysaa ninkan u dee maaragtay keliya social media wax uu ka sheegay inay ilaa ka dhabbay ahayd sheekadu maxkamad bay in safaaradda Sweden Denmark inay la xiriirto in ballaman loo dhigo in DNA loo ballamiyo meel adag laakiin Swedish is not easy dad sahlan ma aha maxkamad haday ku qabato khatar waaye ilaahay baan ka magangalay baan leenahay laakiin xaaladdu ma sahlana Mukhtaar hayte Mukhtaar waa la hayaa laba dib loo haystaa wixii hore bayaan iyo tororog u daa qof nool lacagtayda la dhaqaaqi maysid baan la maqli jiray garoowe ka taagan qof dhintay la aasi maayo nalaka aasi maayo ilaa lacagta la bixiyo su'aal isweydiin mudan baa jirta laakiin oo meesha ku jirta lacag kule baa haysta waxayna yiraahdeen lacagtayda nala siimahay la aasi maayo $7,000 lacagtaas waa dhan tahay haddana waxa dhiman dad kale oo xoolo baa soo socda waan wacnay ku jira dadka amray baan ku jira hadda ayadoo nool baan waxaan ku yiraahdaa hadaa dhimatid lacagta ma lahayn reer baadiya lahaa aniga sida adiga lagu leeyahay hadaa isiin weydo inta nooshahay hadaa iga horeysid waa ku qabsanay deenkana lagu leeyahay waa $7,000 mana bixin karno danyaraanu nahay sifiyaadan cali gabadhaas waxa weeye sida loo sheegay ganacsatay ahayd ariga qali jiray annaguna arigaanu ka gadi jiray waxaan ku leeyahay lacag 400 ma garatay waxaan ku leeyahay hadda muddo 7 bilood waana ka waayay haddana waa taageeriyootay Allahu naxariisto marka waxa weeye dadka amray baan ka mid ahay
lacagta reer baadiyaa leh ari reer baadiyaan ka gaday reer baadiyaan ka gaday sida aanu haysana annagana nolol haystaa marka intee leeg bay lacagtaas gabadha 7 bilood baan ku lahaa wana 70,000 oo dollar gabar ari qali jirtay si 70,000 loogu yeeshay ajab adduunyay xaalkaaba maantana ma waxay maraysaa Garowe in la soo dhoobo dad leh gabar dhimatay oo meyd ah baan 70,000 oo dollar u haysanaa mucjiso la yaab la weeye waa arrin lala yaabo weeye oo ma garanaysa qofka lacag waa lagu yeeshaa 70,000 100,000 500,000 milyan 5 milyan baa lagu yeeshaa waa caadi diinka qofka waa lagu yeelan karaa laakiin ari bay qali jirtay 70,000 baa lagu leeyahay oo kulli dadku waa taagan yihiin oo waxay u taagan yihiin nala ka aasimaayo qodobka nala ka aasimaayo ah wax horta meesha qabta ma aha tan labaad calaamad su'aal baa saaran 70,000 oo dollar dadka deynka waa lagu yeeshaa $1 $2,000 7,000 oo dollar waaba macquul waaba gaargaari kartaa baa la is oran karaayo xoogaa bariwanku siinaya tanay sii bixisaayo mid kale soo qaadaayo tanay qaar ka bixisay caruur bay ku korsanaysay hooyo weeye oo aabaheeda meel yaalay hooyadeeda meel u taalay oo wuxuun bay biil ka daynaysay loo qaateen way laakiin 70,000 see ku dhici kartaa teeda kale fadeexadda iyo ceebta maxaa social media lagala soo doonay luqluq iyo in wax lagu xalliyo bay bahash ku qurux badnayd laakiin hadiiba dadkii la soo taagan yihiin dabcan social media dadka jooga ha looga kaco halkaa 70,000 oo dollar halkaas ka helaysaan barnaamijku wuxuu u badan yahay inuu sidaa ay dadkaas iyagu ku yimaadeen dadkan la lacagaan ku leenahay dadkii gabadhu ay ka dhalatayna qaarkood sida odayga ahi waa ka taagan ninka odayga ahi oo leh awood aan ku bixin la malihi ilaahay xaajada ha sahlo laakiin waa xaajo ugub ah qof dhintay layga aasi maayo dad dhan oo 70,000 oo dollar ummad kule inay soo istaagto kolba islaanta hadda waa muuqataa 400 oo dollar bay sheegtay 7 bilood baan ku lahaa bay tiri layga aasi maayo aad iyo aad bay arrintaasi u adag tahay waa xaajo uguba baan leeyahay wax looga bartay social media ma laakiin intaan social media joognay wax badan baan u soo joognay wax badan oo la yaab leh wax badan oo mucjiso ah baan u soo joognay oo midba midda ka dambaysa ay ka sii daran tahay oo lala yaabayo ilaahay amuuraha sahlo gabadhaas dhimatayna الله نحرسه لكن سؤال شيء سويدين تمضن أو إلا حدا أنا لقاه يجوا حيسه قلبي جيجا وقادم لا إيه وحكم إذا كبر أرق ليس سيدي الله ويا لان كلا $7,000 $7,000 سيد الله ويا شيء وأرين الله ريابه أنت كده هنوجد بيننا حاج برق مختار برق وسكا مقع ناس وي لكن مقع بحي وي dhibna kama wadno laakiin maxkamad Isfaria Sweden is not easy xaajadeedu kaftan iyo dheldheel ma aha safaaradii baa loo diray markii Sweden ka dacweysay safaaradii baa la xiriirtay Denmark odayga ballamihii buu googooyay falaari gilgilasho kaagama harto ninka horta مختار أنا وصاء إسلاي هاي وحلو حكومي دونا حرقي حبسي شيء كذا ما تعلمش تكسيله ويبقى اللي يقولي ميا سجن أفريقيا كم قلسان أملايني قلبه أموانين شقية شقدي سيك جايسة المهاس إلا أسديد يتبان سنة جاره بالكيسة بواجب كنا قناية هدوم محكمة السوء حاضر ويا سوء حاضر ويا قلبه وأكو قررسين دونال ودنا عن لبعتها جرتا وحيت هاي warqad baa lagu soo dirayaa xusuusin baa lagu soo raacinayaa wuxuun baa hadana lagu soo dirayaa waa la gudbinayaa qolyaha loo gudbinayaa qolyahaas lacagta inta bixiyaan bay iyagu dalban doonaan waxaas way isaga kaa badanaysaa way kugu badanaysaayo
maalinba maalinta dambaysa liiska madow baa gelaysa xaaladdu inuu qofkaasi lacagta iska bixiyo waxa u khayroon marka intay meelaha ku gaari lahayd waxa u khayroon inuu iska bixiyo bil kasta mid baa idiin sheegay inaan lagu kala fakan karin baan ku sheegay aniga hadda idinla hadlaya kaarkayga bangiga oo lacag xoogaa fiican iigu jirto baan annagoo 4 qof baanu ahayn diyaarad baan kasoo degnay Jarmalka Berlin baanu joognay tareen baan soo galay tareenkii baa dhexdiisa internal ku qabtay waxa la yiri keen macnaha tuuganimo kumaan raacin laakiin waxay ahayd salaadii subax ka hor meel aan ka goosanana waa weynay waxaan isniri sida Sweden oo kale tareenka dhexdiisa ku gooso hadda ma aqaan tareenada kama warhayo intii ilaa 7 sano 8 sano ma aqaan tareen kama warhayo laakiin kolba intii hore tareenka dhexdiisa lagu goosan jiray saan ku ogaa hadda in laga bedelo waa dhici karta marka inta muddada warkamay tareenkii baan calay kul hal soo galay naagtii saasay noo eegtay tigidkii keen tigid ma hayna hadda noo jar baan ku niri dhag way saartay dhiq way siisay khalaas kaarkayga bangigan geliyay magacayga baa soo baxay magacayga Imraan Khan Abood baa soo baxay ta soo tagnay markaan tareenkii ka degnay oo meelihii baan arkay lacagtii waa iigu jirtaaba marba meel baan iska saarsaday waxbaan ku gadanay bas kalaan soo raacnay diyaarad kala gooso iska shuu lacagtii anu faataxadeedaan maray waa cunay lacagtii wixii lacag iigu jiro igamaba goosan ba war alxamdulillah faataxadaan maranay iska soo dhaqaaqnay waa nin ma 2 bilood baa ka dambeysay ma bil kadib baa ma aqaan gurigayga warqad ku soo dhacday warqadaas tigidkii Jarmalka oo bixi lacagtaas soo bixi hadii kale karavunden meel leeyahay kronvunden halkaas galaysa yaa may daba joogan iimaanka alla idinka qadac waa jira Jarmalka marka wadanadan ilma adeer way lagu ma kala baxsado maxaan cali jaamac iyo xirsi cali jaamac weeyna daaqada laga dhig marka muxtaar waxa ma fakan karo maxkamadii iyo adduunki iyo wixii baa idin sii deynaya ma raba inaad ka dhex galay ila daawada bal guys waan joogaa maxkamadda waa kana ya meeshaasaan taaganahay way ila joogaan lawyerkii iyo naagta shaqada ku leh ma raba inaad ku qabto sharci daro biriqo bagoyrta hadda goysida bugobalaay adeeg ku taala aniga iska guto waajibkayga alle heek alle magaca raayib xaq uu ku qoran yahay waa salaama guys maranteed meeshaan ay milyan taagantaa maanta maxkamadda adkaatay balaayada wax ku darsatay maxkamadda taagraare waa salaama muku qabi kari iiga laa ku ag taagin way ag joogaan okay waa kaas hadaa imaadan adeeg ku rufiicanta hadaa goysana adeeg ku daranta wax naga gala mala anaka adkaatay oo fogaat waa salaam raay snapchat iyo meelihiina kala geesta daartiin maanta maxkamadan joogaa raahid iyo aniga iyo odagii maxkamadaas la saaranahay saddexdeena kii guuleystaan arka ama ani raahid waa guuleysanayno ama odagii dulfaana waa guuleysanayo adkaa maadaama mukhtaar uu Denmark degan yahayna oo familiyada waxay la xiriireen safaaradda Denmark iyaduna waraaqaha ka arki kartaa. Och för att sammanfatta det som står i utredningen så hade även ambassaden svårt att nå Mokhtar men fick kontakt en gång via mail. Soo koobo waxaa meesha ku qoran safaaradda waa lala xiriiray hal mar buu email kula xiriiray Mokhtar. Och då meddelade Mokhtar att han var osäker på om han var fader och ville göra ett DNA-test. Markaasna wuxuu yiri Mokhtar anigu ma hubo inaan aabe ahay DNA halayga qaado. Och då skickades det ett DNA-kit till ambassaden men Mokhtar dök aldrig upp för att ta testet. Marka qalabkii DNA loo diray safaaradda laakiin Mokhtar marna ma iman oo iskama qaadin. Så ambassaden har avslutat ärendet hos sig. Safaaraddu kadib arrintii waa ay iska laaftay. Och inte heller Maljun har kunnat få kontakt med Mokhtar angående faderskapsbekräftelse. Iyo lafteedu kuma guulaysan Mokhtar inay la xiriirto oo aabanimada caddeeyo. Och det kan även tilläggas att nämnden saknar kännedom om varför det inte går att nå Mokhtar. Ma aan garan anagu sababta Mokhtar loo leeyahay.
Och med anledning av det som jag har anfört nu så har då faderskapsbekräftelse inte kunnat godkännas och nämnden har därmed inte kunnat fastställa faderskapet. sida aan sheegnay hadda awgeed ayaan aabanimadii loo caddayn karin Och därför, oo aan maxkamadda ugu soo gudbin. och därför är vi här idag efter att talan väckts så att tingsrätten kan fatta beslut i frågan. Sababtaas baan halka u joognaa maanta markaa kadib oo in maxkamaddu ay caddayso. Tack. Waa mahadsan. Tack så mycket.